بسم الله الرحمن الرحيم وهبين بتلاده او اي 4 soo galayso 24 bisha February sanadka 2026 oo ku beegan 7 bisha Ramadaan sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran oo galabtay sameeyay dhoolatus balaaran oo lagu soo bandhigay sida maraakiibta loo qoosiyo dhinaca kale Iran ayaa Shiinaha ka soo iibsanaysa gantaalada guuxooda ka dheereeya ee hypersoniga ee maraakiibta dayax gacmeedyada iyo diyaaradaha lagula dagaalamo sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Mareykanka oo in ka badan 10 diyaaradaha dagaalka gaar ahaan nooca F-22 caawi ka soo dejiyay Israa'iil xilli ay si xoogaysanayso xiisadda bariga dhexe dagaalna lagu sii siqayo caawa waxaa soo baxay war weyn oo cajiib ah kaas oo lagu sheegayo in ciidamada Mareykanka aysan wadi karin wax ka badan 5 maalmood duqeyn ka dhan ah Iran ku dhawaad 70 qof oo rayid ah oo dhimasho dhaawac lagu geystay weerar ciidamada RSF ee Suudaan ay ku qaadeen galabta tuulo ku taal gobolka Darfur ciidamada Pakistan iyo Afghanistan oo madaafiic isku weydaarsaday xadka labada dal iyadoo laga cabsi qabo dagaal furan oo ay galaan dhinacyadani sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay jacayl dartiis sirta nuclearka wadankaaga ma u bixin lahayd waxaan idin haynaa sheeko cajiib ah oo nin jacayl dartiis u bixiyay sirtii nuclearka wadankiisa xagee ka dhacday arrintan sheeko la yaab leh weeyaa dhammaan qodobadan iyo weliba kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha Imara Luxury Homes si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa Suudaan galabta waxaa ka dhacday dhacdo masiiba oo la yaab leh dad meel ku nasanaya oo loo badanaya qaarkood in ay soomanaayeen oo sugaya afurkii ayaa dhinac kasta waxaa laga geliyay rasaas gobolka Darfur ayaa arrintan ka dhacday ku dhawaad 70 qof ayaa dhimasho dhaawac u soo gaaray in kale waa la qafaashay xaaladan waxay noqotay xaalad argagax leh baraha bulshada waxa la soo dhigay idama tusi karno muuqaalo la duubay iyadoo dadka la leynayo haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtan iyo waxa laga qoray ugu yaraan 28 qof la soo dhaafay iyadoo colaadan ay soo taxnay tan iyo bishii Abriil 2023 waxaana ay sababtay dhimashada kumanaan kun oo qof iyo barakaca 13 milyan oo qof وهاجاك وحي كسو كردها arrintaasi waynu arki doonaa Afrika aynu ka gudubno oo xagga Asia aynu eegno labada wadan ee dariska ah ee muslimka ah ayaa lagu soo waramayaa ciidankooda mar kale dagaal in ay dhex mareen waa Afghanistan iyo Pakistan ciidamada Pakistan iyo Afghanistan ayaa galabtay rasaas ay bilaabeen rasaas aan sabab lahayn waa sida dalka u dhigaya oo ka dhacday deegaanada Turkham iyo Tira laakiin ciidamada Pakistan ayaa si degdeg ah uga jawaabay wuxuuna uga digay Kabul in falal kale oo caynkaasi ah ay la kulmi doonaan jawaab degdeg ah oo waliba adag saraakiisha Afghanistan ayaa dhankooda sheegay in ciidamada Pakistan ay rasaasta bilaabeen ayna ciidamada Afghanistan ka jawaabeen mas'uuliyiinta gobolka Nangarhar ayaa sheegaya in iskahorimaadku uu ka dhacay degmada Nazian balse uu si degdeg ah u joogsaday iyadoo wax qasaare ah uusan soo gaarin dhinaca Afghanistan
docda kale Islamabad ayaa sheegtay in duqeymihii hore lagu beegsaday xarumo ay ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waxaad la socotaan oo daawanaysaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar fahlooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waaga xaaladda bariga dhexe iyo xiisadda aloosan aynu haatan jaleecno dhanka Iiraan baynu ku hormaraynaa Iiraan aad ba isku hubaynaysay tan iyo wixii ka dambeeyay bishii June markaasi oo weerar lama filaan intii lagu qaaday markii hore la laqsiyay laba dharbaaxo inkastoo ay ka soo kabatay oo feer ay ku jawaabtay oo Israa'iil gacanta ay taagtay oo Netanyahu uu yiri Trump dagaalka naga jooji Israa'iil oo weligeed xabajoojin dalbatay dagaalkaas baa la arkay baa la yiri sida khubarada ay sheegayso ilaa iyo maalintaas ilaa iyo hadda Iiraan waxay wadaa is hubayn gudaha inay isku hubayso oo waxa ay farsamaysan kartana farsamaysato Shiinaha iyo Ruushka sidoo kalena ay hub ka soo daldalato barnaamijyadeen hore waxaan idinku soo gudbinay diyaarad 10 maalmood oo isku xigta hub keenaysay Iiraan oo ka imaanaysay dhanka Ruushka waliba diyaaraddan waa diyaarad weyn arrimaha cajiibka waxay tahay oo khubarada ay ka hadlaysaa diyaaraddan nidaamka looga socdo diyaaradaha ama raadaarka waxa loo yaqaan maysan desan iska dhaaf kuwa militariga oo diyaarad kasta lagula socdo kuwa rayidka caadiga ah oo lagula socdo diyaaradahan adduunka kala gooshaya rakaabka ayaa lagu arkay diyaaraddan khubaradu waxay leeyihiin arrintan waa arrin loogu talagalay Mareykanka oo ah fariin Ruushka u dirayo laakiin ninka hoosta hawsha ka wata waa Shiinaha oo aamusan oo haddii hadla muxuu leeyahay dhinacyadu hay saxakameeyeen arrintan diblomaasiyad u baahan tahay dagaal cidina dan uguma jirto maanta ugu dambeysay barnaamijka wararka caawa anagii kugu soo gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo arrintaas ka hadlaysa laakiin hoos ba hawshiisa ka wata Shiinaha haddaba aynu eegno war amurtan la xiriira ila xogogaal iyo saraakiil amni ayaa sheegay in Iiraan ay ku dhowdahay in ay soo gabagabayso heshiisyo muhiim ah ay kaga soo iibsanaysa Shiinaha arrinkan oo ka turjumaya horumar weyn oo ku yimid iskaashiga military ee u dhaxeeya Tehran iyo Beijing sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters heshiisadan ayaa la sheegay in ay ku jiraan gantaalo lidka maraakiibta oo xawaaro sare leh iyo nidaamyo difaac oo casri ah arrintaasi oo la rumaysan yahay inay wax ka bedeli karto isu dheelitirka awoodda gobolka xilli xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka cirka ay ku laran tahay 6 ilo wareed oo xogogaal ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxay u xaqiijiyeen in Iiraan ay ku dhowdahay dhamaystirka iibsashada gantaalada loo yaqaan CM-302 ee lidka maraakiibta inkastoo weli aan la gaarin heshiiska dambaysa oo ku saabsan waqtiga keenista gantaaladan oo Shiinuhu uu farsameeyo isla markaasina gaari kara masaafadan 290 kilomitir ayaa loogu talagalay in ay ka baxsadaan nidaamyada difaaca badda iyagoo ku duulaya xawaare sare iyo joog hoose taas oo khubaradu ay u arkaan khatar toos ah oo ku wajahan ciidamada badda ee Mareykanka ee gobolka ku sugan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in Tehran ay wadahadallo xooggan kula jirto Beijing si ay u soo iibsato xirmo cusub oo ay ku jiraan nidaamyada gantaalada lidka dayuuradaha ee garabka laga rido hubka difaaca gantaalada balastiga iyo suurtagalnimada helitaanka hubka lidka dayax gacmeedyada saraakiil amni ayaa sheegay in wada shaqaynta military ay si weyn u dardar gashay bilihii la soo dhaafay kadib booqashooyin saraakiil sarsare oo reer Iiraan ay ku tageen Shiinaha ilo wareedyo ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in Iiraan ay noqotay goob tartan oo u dhaxeeyo Mareykanka iyo xulafada Ruushka iyo Shiinaha oo Iiraan xulafo la ah iyadoo Tehran ay xoojinayso iskaashigeeda bariga si ay uga hortagto cadaadiska reer galbeedka Iiraan marka waxay taagan tahay reer galbeed soo anaga naguma hayaan cagajugleyn reer bari waan isku dhiibaynaa marka
arrintu marka halkaasay maraysaa gantaaladan haddii iiraan ay hesho isku dheelitirka gobolka marka lagu leeyahay waxa weeye Israa'iil iyo gobolka oo dhan bay ka awood badanaysa waaye iiraan maxay kaloo samaysay galabta dhoolatus toos ah oo maraakiib la duqaynayo badda gudaheeda ayaa la sameeyey aynu eegno warkan ciidamada dhulka ee ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sameeyey tababaro military oo ka dhacay xeebaha koonfureed ee dalka sida uu sheegay telefishinka dawladda xilli Mareykanku uu ka fiirsanayo suurtagalnimada duqeymo xagga cirka ah oo ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in Iiraan ay maalmahan kordhisay dhaqdhaqaaqyada military ee gobolka iyadoo wadahadallada ku saabsan barnaamijka nuclear-ka ay marayaan heer gabagaba ah isla markaasna uu jiro dhaqdhaqaaq ballaaran oo awood ciidan Mareykanka ah oo gobolka ka socda muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka Facis ee Iiraan naga leeyahay ayaa muujinaya ciidamo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska madaafiic iyo gantaalo lagu weerarayo maraakiib ku sugan badda iyo bartilmaameedyo xeebta ku yaal halka gaadiidka barri biyoodka ama kuwa dhulka iyo biyaha ku socda ay sameeyeen tababaro ku saabsan inay ka soo degayaan xeebaha waaye intaa marka laga tago warka ugu weyn oo warkan marka caaw warbaahintii oo dhan caaw warkan baa laga hadlaya haddii ay noqon lahayd idaacadihii telefishinadii dadka arrimaha militariga ka faallooda waxay la noqotay fajac iyo layaab arrintan weliba waxaa laga soo xiganayaa sarkaal Israa'iiliya waxaa la leeyahay ciidanka Mareykanka 1 2 3 4 5 maalmood oo kaliya ay duqeyn karaan Iiraan maalin lixaad ma ku dari karaanba barnaamijkii ka horreeyay maxaa idinkugu soo gudbinay wararka caaw warbaahinta Mareykanka iyo tarreey galbeedka oo leh waxaan ka soo xiganay xubno ka tirsan maamulka Mareykanka madaxweyne Trump oo ka niyad jabsan awoodda ciidanka Mareykanka inay wax ka tari kartay Iiraan arrintan maxaalad dagaal baa mise waxbaa ka jira qobrada qaarkood kuwa Mareykanka waxay leeyihiin waxbaa ka jira Witkoff muxuu yiri waa ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe waxaan la yaabanahay buu yiri Iiraan oo awoodan intay aragtay aan isdhiibin laakiin nin khabiir ah hadlay oo reer Iiraan wuxuu leeyahay Iiraan Venezuela ma aha Iiraan Venezuela ma aha marka la isku geeyo macluumaadyadan saxaafaddu ma ogtahay wararka waxay ka keentaa dhinacyo kala duwan kadibna waa la isku daraa hadalkii uu jeediyay Stephen Witkoff warkii la yiri madaxweynaha Mareykanka wuxuu ka niyad jabsan yahay awoodda ciidanka Mareykanka iyo warkan soo socda oo sarkaal Israa'iiliya uu sheegayo saddexdaas war marka la isku kabo wax weyn baa ka soo baxaya meesha haddaba aynu eegno sheekadan oo hadalhayn badan dhalisay sarkaal sirdoon oo Israa'iiliya ayaa u sheegay wargeyska Financial Times ee ka soo baxa magaalada London in Israa'iil ay aaminsan tahay in Mareykanku inkastoo uu keenay awood ballaaran gobolka oo ay ka mid yihiin laba markab oo xambaaro diyuuradaha dagaalka ay awood u leeyihiin oo kaliya in ay fuliyaan 4 ilaa 5 maalmood oo duqeymo xagga cirka oo xooggan oo ka dhan ah Iiraan sarkaalka ayaa sheegay in duqeymo heer hoose ah oo la sii wada karo muddo 7 ah ay markaasi cabsi weyn ka jirto inay sameyn karto arrintaasi sidoo kale waxa leeyahay tani waxa laga yaabaa in ay xadido weerar Mareykanka uu ka fuliyo gudaha Iiraan kuwaasi oo xitaa ku dhiirigelin kara xulafada Mareykanka dagaalka inuu ku guuleysan karo arrintaas waxa la leeyahay dhinaca kale haddii ay dhacdo in Iiraan aysan u arkin wax weyn inay tahay iyada waxay ka qaadaysaa baa la leeyahay dhiirigelin sheekadu markaas ay maraysaa marka sarkaal sirdoon weeye ma aha siyaasi caadi iyo militariga ma aha sirdoonka Israa'iil waxay awood u leeyihiin macluumaadka Mareykanka meelaha lagu soo ururiyo inay helaan marka waxbaa socda reemiduga maxay yiraahdaan waxbaa sarag leh waa hagaag waxa kaloo soo dhacay war goordhaweeto sheegaya in Mareykanku 12 diyuuradood oo ah nooca F-22 uu ka dejiyay Israa'iil waxaana warkan xaqiijiyay telefishinka lagu magacaabo Kan afka xukuumadda Israa'iil ku hadla waxaana la sheegayaa arrintaas inay noqotay arrin muujinaysa diyaaradahaasi oo lagu soo waramayo in markaa halkaasi la geeyay muuqaalkan aynu daawano diyaaradaha oo garoonka Israa'iil markaasi la keenayo
taas oo markaasi muujinaysa sida aad halkan ku arkaysaan diyaaradaha oo markaasi laga soo dejinayo garoonkaasi arrintaasi oo la sheegayo inay tahay arrin saameynteeda leh waaga imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen وهاجاك waxaan idin haynaa sheeko kale oo la yaab leh nin baa jacayl dartiis waxda gabar uu jecel yahay wuxuu u bixiyay sirtii nuclearka wadankiisa oo halkii abwaanka Soomaaliyeed uu ka yiri jacaylku indhama leh laakiin marba hadii arrintu ay joogto nuclear jacaylku waxa loo baahan yahay inuu yeesho indha laba indhood maahan afar inuu yeesho loo baahan yahay meesha laga yiri jacaylku indhama leh labada indhood ee bini aadamka marka laga tago afar inuu yeesho loo baahan yahay baan leeyahay haddaba inagna sheekadan xiisaha leh injineer ka tirsan shaybaarka cilmi baarista iyo horumarinta difaaca Hindiya ayaa lagu eedeeyay inuu xog sirdoon oo xasaasi ah uu siiyay basaas u dhashay waddanka Pakistan kadib markii injineerkan reer Hindiya u dhashay lagu qanciyay jacayl guur ku salaysan iyo ballanqaad inay isguursan doonaan wargeys ka soo baxa Hindiya oo lagu magacaabo The Times of India ayaa waxa uu ka soo xigtay ila sarsare oo ka tirsan booliiska waddankaasi in injineerka lagu magacaabo Mallikarjuna Reddy lagu helay in uu bixiyay macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan barnaamijka nuclearka Hindiya gantaalada balastiga ee qaaradaha isaga gudba iyo kuwa badda hoosteeda mara ninkan Reddy la yiraahdo waa 29 sano jir jimcihii ayaa waxaa laga soo qabtay gurigiisa waxaana lagu soo eedeynayay dambigan basaasinimo oo uu qirtay kadib markii booliisku su'aalo adag ay weydiiyeen eedeysanahan ayaa tan iyo 2018 wuxuu ka shaqaynayay xarunta nidaamka casriga ah ee badda ee waddankaas Hindiya ee ku taal magaalada Hyderabad waxaana lagu soo warramayaa in haweeney lagu magacaabo Natasha Rao oo basaas ahayd laakiin ahayd qof iskaga dhigaysa ninka inay barato Facebook ay kala soo xiriirtay kadibna xiriir bay sameeyeen xiriirka wuxuu gaaray in la is aamino waliba jacayl bay gabadha ku beertay ninka Reddyha wuu iskala waayay kadib markii jacayl loo soo bandhigay beerka la jaray kadibna sirtii ayuu furay oo banaanka geeyay maxaa ka dhacay hadda xabsiga ku jiraa baa la yiri jacayl dhiig ma lagu qoray oo halkii Soomaalidu ka tiri وهاجاك انت ayaan ku soo gabagabeynaya caawa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa